السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore waxaan u hambalyeeynaa oo inuu ducaynaynaa ardayda maanta qalin jabinaysa ee faraha badan ee 18 ah waxaynu bogaadinaynaa waalidiintii ku soo tacabtay jaamacadda Camuud gudoomiyaheeda boorka guddiga trustigaha iyo macallimiintooda halkaas soo gaarsiiyayna waa bogaadinaynaa oo waa u mahadnaqaynaa waxa inoo guula in qaran ahaan maanta ay inoo soo baxeen 18 degree holderisa ama jaamiciina oo culum kala duwan baratay oo ummadda Soomaaliland uga faa'iideyn doonta dhinac walbana Ilaahay baynu ku mahadinaynaa dadka toocana waa mahadnaqaynaa hambaryada iyo mahadnaq kadib waxay la tahay intii hore intay dardaaran iyo hoogatus iyo dhiirigelin iyo ducabaydii yidhaahdeen ayaa anay igu eg tahay oo intii hore intii ay tiri baan ku kalsoonahay oo raacinaya dhinac walba waa laga hadlay qodobo badan baa la sheegay marka saddex erey gaagaaban baan odhanayaa taariikhda jaamacadda waa la sheegay tacliinta iyo awoodda ay leedahay iyo siday u shaqaysana waa la sheegay qodobadii halkan laga sheegay maanta waxaan ku darayaa maanta waxaanu fadhinaa xaflad laba xafladood oo waaweyn iyo laba qalin jabideed oo waaweyn waa koowa waxaynu marka hore u dabaal degaynaa aynu soo dhoweynaynaa ardayda 1800 ah oo xafladda loo qabtay waxa ku lamaan xaflad taa ka weyn oo guul Soomaaliland oo dhan soo hooyatay oo geeska Afrika inta lagu arkay ay yar tahay ama Afrika badankeedaba waxa maanta guul weyna oo shacbiga Soomaaliland meel jooga gaaray oo idinkana mustaqbalkiina aad ku higsan doontaan oo arkaysaan Soomaaliland oo loo dardaaro wariyo oo la yiraahdo lama ictiraafan oo la yiraahdo waa dal yar oo faqiir ah oo la yiraahdo waa dal rabshad badan oo hada jeer qabsada waxaan doonayaa inaan u xusuusiyo guusha la gaaray qof waliba qayb ku lahaa waxaan arintaa u sheegayaa aan doonayaa inaan tusaaleeyo dad badan baa u qaata siyaasadda meel colaad iyo balaay taalo ama mucaaradka iyo muxaafidku inay yihiin dad daahoodka oo aan wada shaqayn laba tusaale oo madaxweyne Daahir iyo Maxamed Yuusuf Asiir madaxweyne iyo ku xigeena iyo Siirayi oo mucaaradna dhex maray oo mar walba dhacdaan idin sheegaya dhalinyaradiinu iyo tacliinta mar waxay ahayd markii aan isku khilaafsanayn doorashooyinkii wax oo abaabul u galayay kulmiye oo hal mudaharaad oo hal boqoray ayaa waxa telefoon igu soo dhuftay awil oo ahaa wasiirkii maaliyadda iyo saaxiibkii koowaad Daahir kale wuxuu ugu yiri walaal Brita waxa saa dhacay dalka khatar ku jiraa hal ma heli karaysa ma qaban aanu Daahir waan qaban karaya adigu Siiraayo ma qaban kartaado labadooda meel gaar ah isku geynaa ma wada hadashina ma oran alla soo tashan Siiraayo ma arka warga waxaan ku waan soo qaban karaya saacadii meeshaadii qabato isna Daahir oo malaha de soo wada hadleen awoodda uu ku qabay waxa ka bilaabmay halkaa inaanu awal habeenkii isu tagno isla qaadana si la sugo doono cid walba kale ba hadaasho waxay ku dambeysay in aanu sugo baadno qasriga madaxtooyada oo Daahir joogo oo aan 12 sano aan gelin inaanu isugu nimaado oo arrintii lagu xalliyo ayaa ka warahay laba Daahir codkii baa la tiriyay labadiisii ugu dhawaa ee campaign la taliyaasha u ahaa labadiiba BBC idaacada ka diyaariyay yeelayeen natiijada soo baxaysa waa labadii ugu adkaa oo media idaacadaha weyn caalamka yiri ma ogolin waxa la wadaana waa khalad markii natiijada lagu dhawaaqay
daahir yaale inta soo fadhiistay waan ogolaanayaa nabadda dalka wax walba iga weyn waana taariikh sacab weyn ha loogu tumaarintaa intaa waxaanu sheegayaa waxaan daba socdaa professor Saleebaan oon in badan isaga iyo gudoomiyaha jaamacadda ka wada hadallo oon in badan halkan ka sheegay meel kale laga sheegay weli waxaan tabayaa inuu isku diidanahay oo mar walba ka warwareegaan waar jaamacaduhu sayniska way soo saareen injineeradiina way soo saareen caafimaadkiina way keeneen beerihiina way keeneen businesska lacagtiina waa la keenay dalku wuxuu ka socon laayay waa hogaaminta jaamacaduhuna hogaamintii way ka warwareegayaan waayo naanis baa loo bixiyay xol siyaasadda markaan siyaasadda waxay noqotay wax laga cararo oo taabiya jaamacadda ayay soo gelin anigu siyaasadda ma galo baa mishtar baan ahay anigu waa abaashahay kan dhakhtar baan ahay haddana nin waliba intaa siyaasadda ku hadlaya gabadh waliba oo lagu jira lugtu ma lagu jira marka waxaan leeyahay jaamacadda Camuud jaamacadaha ugu weyn oo ugu magac weyn oo ugu waaya aragsan waa in laga helaa meel lagu qabtaa dibeedyada iyo cilmi baarista researchka siyaasadda oo dalka dhaqaalihiisa sidee loo hagaajiyaa dowlad wanaag sidee loo helaa dadka sidee la isu afgarasiiyaa doorashooyinkan muranka badan ay nagu soo noqnoqdo mar walba sidee xal loogu helaa dee jaamacadu waa inay taa ka sameeyaan researcho iyo aqoon-yahano oo ninka xisbi hogaaminaya ama dowladda haya uu gacan helaa gacan ra'yigii dadkoo la ururiyo la shiilay waa inuu helaa meeluu kalaba soo baxo dhakhtarku haddii aanu haysan shaybaanu ku noqdo dawada oo caalamku muxuu ka yidhi oonu kaari fargelin dawo kuma siinayo dhakhtar weyne noqon maayo injineerku waa la mid haddii la yidhi qof halkaasoo dalka hogaami meeyorkoo dalka hogaami baarlamaankoo dalka hogaami oo aanu weligii hawshaa ka shaqayn meel uu noqdana aanu haynin jaamacad walaaq u dhow diyaarsana aanu hayn oo dhan taasaa dhacay taa ka yeel dee hore loo socon maayo marka waxaan leeyahay jaamacadu waa inay sameeyaan facultigii leadershipka ama political science dheh maxaa siyaasadda looga baqaya wugtaa lagula jiraaye waa inay qabtaan doodo oo iyagoo hogaamiyaan waa inay muranada dhaca iyo xalkooda keenaan ilaa iminka muranka dhacaa maaha kii labada reer migis qabsanayeen markaa jaamacadaha waxaan leeyahay taa la wado oo Camuud waxaan ka codsanayaa Dr. Maxamed Muusow intii hore intaa waanu hayno naga qabanay in la furo doodaha iyo researchka iyo faculty siyaasadda intaas ay noo dhiman haddii kala dalka hore u socon maayo macallin Saleebaan dee wuu ritaayir gareeyay horta isagu 54 sano shaqadan hayay buuri horta 54 kaaba waan su'aal joognay intaasi waa kaftanka in badan baa fadhiidana wax kala hadlayay waana taariikh caadi oo iska dhacda waxaan ku soo gabagabeynayaa waxyaalaha badan ee soo barateen ereyada ugu dhaadheer waxa la yiraahdaa inspiration dhiirigelin aragti vision role model dayday waxaa soo magacaysu gee maanta haddaad tiin jaamacadda Camuud waxaad nasiib u hesheen iyadoo baragtikala oo meel loo doonay ayaan haydisi haddaba waxaa la hadlayaa gadaal dhaladka Camuud baa la hadlayaa ee odaguna aad u jecel yahay ayaana aad wax ugu sheegaya maxaa hesheen waxaa hesheen Camuud oo shantii Somaliland madaxweyne ka noqday 3 ay Camuud ka soo baxeen oo mid walba raadkiisa ahaysa waxaa hesheen dadka ugu magaca dheer Somaliland ee meeydiyaha ka hadla ee Soomaali oo dhammi taqaariir dhageystaa 80% waxay ka soo baxeen Camuud Ahmed Saacid Watar baa ka awka ka dalmar baa Yoris baa Saciid baa macallimiintii Somaliland la furo kala baxday kala baro bar kuwa ugu wanaagsan Camuud bay ka baxeen musagarna kamid aha Allah naxariisto ninka jaamacadda Hargeysa ee dhintay siyaasiyiinta ugu cadcad dhageysta badankoodu Camuud bay ka baxeen inta imka xisbada oo ka baxaysa qaar badankoodu waxay ka baxeen qaar Camuud dhakhaatiirta waxaa soo dhamay waa dadkii ka horeeyay oo weliba walaalayaal gadaal dhaladkow annagu ma nahay jaarska hesheen PhD waa ku qaadanaysan Camuud taariikhda suuraysan waxaan ku war nasiib badan ku
wuxuu xamar wixii gaaray baanay ogey baashi gaajayda xamarna gaadhay berigi baanay ogey buur PhD way nagu hor qaadanaya saako loo dabaal degaya marka waxa ku daataan iyo waxa higsataan iyo waxa ku daataan baa haysa intii macallimiintu diiday asalaamana diidan baan leeyahay maanta aqoontiinu muddo ku baahay maanta dalku aqoon buu baahay waxaan mar walba soo qaadaa imkana xusaya inamadii loo doortay dawladda hoose badankooda 8% waliba gudoomiyaasha loo doortay degmooyinka waxa la igu eedayaa bariga xisbiga oo madax xajirino waxa ka soo baxay xisbiga markay ka soo baxaan kuwan doonaya kuwan xisbiga doonaya ha ahaadeen nidaamka uu shaqeeya oo dadka nabadeeya oo fishalaan doonaya ku ka soo baxay waa kan doonaya ka noocaasi inuu dalka hogaamiyo iyo qolada shaqo qaran loo roor model waxay noo balana oo aan ka codsanaya bal hadayna ka fikirtaan kol dambaynu soo maadna hadii la yiraahdo waan weydiin doonaa maanta waxaan joognaa 2022 bal hadda waxa ka fikirtaan 2022 ama 2024 sideebaad u aragtaan jaamiciyiinta masterkii baa qaado maxaa doonaysaa Soomaaliland soo weekaato tu kala adii sheegaya tusaalaha كوميلاتن سنة كور شنات سنة كور مركز سليبان iyo riyaale iyo cigaal iyo jaamacadan hadal hayay fishanka ay arkayeen inay sida noqon doonto yaa arkay shantanina soo hindisay iyo kuwa dibadda ka taageeray oo dhamme yaa arkay riyaal oo arkay laakiin iyagu way muuqatay riyaas inay sida noqonayso Saleebaan maanta wuxuu ku deeq wax walba uga weyn riyadii ay riyoorayeen isaga rigi la socday inay maanta iyadoo dhaba oo hirgasho sida gantaalka u socota inuu ku wareejiyay waxaad ka doonayaa inaad saa 20 sano soo gaba Soomaaliland si noqonaysa ama dad ka rabna oo deetana hirgelisaan fishanka Soomaaliland ka wanaagsan ka nabad badan ka shaqo badan ka warshado badan ka qab weyn adduunka halka doonka raaxo waana la gaaraa marka loo adkaysto maxaa buruufa soddon sano inuu ahay Soomaaliland online tarafsan leeyo dardaar warnay soddonna waxaanu hayn dawladdu waxaanu ku jiray dawladda Afrika ugu xoog weynay bal qora tacliiminta ay sugeeya soddon ka sanadood aynu dawladda Afrika u xoog weyneen ee Ruushya Mareykanka bayna caawinayeen ee Soomaali Republic loo oranayay bal maxaa u qabsaamay gobolka awdal xisaabiya soddon kiilo noo dardaar warinayay ee la lahaa dawlad ma aha ee la lahaa waa dalan ictiraafsanayn ilaa qofka ilaahay ictiraafsan yahay ka xoog weyn bal xisaabiya soddonkii sano waxaynu qabsanay xisaabiya inta jaamiciin oo soo baxday xisaabi inta wadaynu sameysnay xisaabi inta guriga dhisnay xisaabi challenge qolada data taqaanay oranaysa waa 30 sanadood wad 60kii ilaa 19 sanadood isu qiyaas horumarku waa adkaysiga iyo aragtida iyo alla aaminaada iyo isku kalsoonaanta intaas ay noo balana wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh